soo dhawaada asxaabta meelo ka mid ah adduunka ayaa lagu arkaa dhacdooyin cajiib ah oo dad badan ay si weyn ula yaabaan waxaana xilliyada qaar dhaca waxyaabo aan suuragal ahayn balse suuragal noqda haddaba qaar ka mid ah waxyaabahaasi ay ku daawan doontaan barnaamijkan aan ku bilowno dad iska dhigay reer aakhiraad cudurka COVID-19 oo dhibaatooyin badan ka geystay meelo badan oo ka mid ah caalamka ayaa waxaa loo sameeyay wacyigelin badan oo loo sameeyay shacabka si ay isaga ilaaliyaan khatarta cudurkaasi sidoo kale waxaa jiray in dadka loogu baaqay in guryahooda ay joogaan taasoo loo arkayay inay dhimi karto faafitaanka cudurkaasi haddaba dadka ku nool tuulada Kaba oo ka tirsan jasiiradda Java ee dalka Indonesia ayaa sameeyay arrin la yaab lahayd oo dadka looga digayay in aysan isu imaan kooxaha si gooni ah isu abaabulay oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa si mutadawacnimo ah isaga dhigay sida reer aakhiraad oo kale iyagoo soo xirta dharka cadcad ee karfanta ee loo xiro marka uu qofka dhinto waxaan kooxdaasi dharka cad labisan ee iyagoo aamusan u imaanayeen meelaha ay dadka isugu yimaadaan taasoo keenaysa in dadka ay kala cararaan oo ay guryahooda aadaan qorshahaasi la yaab kale ayaa waxa uu ahaa mid dadka deegaanka looga digayay halista uu leeyahay cudurka COVID-19 oo kumanaan ruux ay ugu geeriyoodeen meelo ka mid ah daafaha caalamka tufaaxa madow inta badan tufaaxa oo ka mid ah miraha ugu wanaagsan ee laga cuno adduunka ayaa midabkiisu uu yahay laba nooc oo kala ah guduud iyo cagaar balse meelo ka mid ah adduunka ayaa lagu arkay tufaaxda midab kale kaasoo si weyn ugu yaabiyay dad badan oo aan horay u arag inuu jiro kalar kale haddaba tufaaxaas oo midabkiisu uu yahay madow ayaa waxaa laga helaa oo keliya deegaanka Jinji oo ka tirsan gobolka Tibet ee dalka Shiinaha sababta keentay in tufaaxa ka baxa deegaanka Ninji uu yeesho midab madow ayaa lagu sheegay inay ugu wacan tahay cimilada halka uu ka baxo iyo waliba ilayska uu ka helo cadceedda ama qorraxda kalarka tufaaxaasi oo ah mid aad u qurux badan ayaa waxaa sidoo kale loo yaqaan diamondkii madooba taasoo ka dhigan inuu ka duwan yahay tufaaxyada kale balse arrinta cajiibka ayaa waxa ay tahay in tufaaxaasi uu ka qaalisan yahay noocyada kale waxaana korriimada geedka uu ka baxo ay qaadataa muddo 8 sanadood ah taasoo ka xilli dheer noocyada kale ee midabkoodu uu yahay guduudka iyo cagaarka dhaqankii la yaabka lahaa dadka ku nool tuulada Sagada ee dalka Philippines ayaa sameeyay mid ka mid ah dhaqamada ugu yaabka badan caalamka gaar ahaan marka ay dadka dhintaan halkii dadka dhintay lagu xabaali lahaa ama lagu aasi lahaa dhulka ayaa waxa dadka tuuladaasi ayaa waxa naxashka oo uu ku jiro qofka meydka ah ay saaraan buur halkaasi ku taala inta badan ayaa waxa naxashada laga raariciyaa dhinaca buur aad u dhaadheer oo ku yaala tuulada Sagada dadka deegaanka ayaa la sheegaa inay raacaan caado halkaasi looga dhaqmi jiray muddo laga joogo ilaa 2000 oo sanadood ka hor qaar ka mid ah naxashada la dhinac suray buuraha ayaa waxa qaarkood halkaasi ay yaaleen boqolaal sanadood iyadoo kuwa soo dhaca ay ku dhacaan meelo loogu talagalay sidoo kale waxaa la sheegaa in dadka deegaanka ay rumaysan yihiin in dadka dhintay ay si caadi ah u arki karaan qoysaskooda ku nool adduunka qalab la yaab leh wasaqoobidda hawada ayaa dhibaato xoogan ka geysata meelo badan oo ka mid ah dunida waxaana dhibaato caafimaad darro oo ba'an ay u geystaan dad badan oo ku nool caalamka iyadoo ay ugu daran yihiin dalalka ku horumaray xagga warshadaha marka la eego dalka Shiinaha ayaa waxa maalin walba hawada wasaqaysan u geeriyooda dad lagu qiyaasay ilaa 4,000 oo ruux dalka Mareykanka ayaa la sheegaa in 4 ka mid ah 10kii ruuxba ay ku nool yihiin gobollada hawadooda ay wasaqaysan tahay haddaba Dan Rusigard oo ah injineer u dhashay dalka Holland ayaa hindisay qalab casri ah oo wax badan ka qaban kara dhibaatooyinka hawada wasaqaysan qalabkaasi oo jooggiisu uu yahay 7 mitir ayaa awood u leh inuu jiido ama uu nuugo hawada wasaqaysan qalabkaas ayaa waxa sidoo kale uu jiidi karaa ilaa 30 mitir cubic oo hawo wasaqaysan nabirigii la yaabka lahaa xilliyada qaar ayaa waxa meelo ka mid ah caalamka lagu arkaa waxyaabo la yaab leh oo dadka qaarkood aysan si fudud ku aamini karin ama ku rumaysan karin haddaba daawada si wanaagsan u fiiri muuqaalka fiidiyogan oo aad ku arkaysid xayawaanka nabiriga oo markii uu neefsado la arkayo qaansaroobaad midabo kala duwan leh nabirigaas la yaab kale ayaa waxa lagu arkay xeebta Newport ee gobolka California ee dalka Mareykanka la yaab ay dad badan ku noqonaysaa arrintan cajiibka ah oo inta badan aysan caan ku ahayn xayawaanada ku nool badda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in la arko midabka qaansaroobaadka marka uu neefsado xayawaanka nabiriga balse meelo badan oo ka mid ah dunida ayaa waxa hore loogu arkay mucjisooyin aan caadi ahayn midabka saxda ah ee wadnaha bini'aadamka haddii lagu weydiiyo midabka ama kalarka wadnahaaga jawaabta ugu horeysa ee ka soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa guduud waana mid inta badan dadka ay si caadi ah u aaminsan yihiin in midabka wadnaha uu yahay kalarka guduudka haddaba xaaladda sidaas ma aha oo midabka dhabta ah ee wadnaha waxa uu leeyahay kalar kale baaritaano ay sameeyeen khubaro caafimaad ayaa waxay ku ogaadeen in kalarka saxda ah ee wadnaha uu caddaan yahay dhaqaatiirta ayaa waxa ay sheegeen
in haddii dhammaan wadnaha laga saaro dhiigga inuu midabkiisu noqonayo caddaan oo waxaa ka dhigay guduudka uu yahay dhiigga. haddaba kama warqabno ama ma naqaano midabka nafteenna, balse kalarka wadnaheenna marka laga saaro dhiiggu waa caddaan. ninkii mucjisada ahaa. marka aad joogto magaalada Taichung ee dalka Shiinaha waa iska caadi inaad aragto xaaladan oo kale oo wax magaaladaas ku badan dadka dhaqda shimbiraha. haddaba mid ka mid ah dadka ugu caansan ee magaalada ku dhaqda shimbiraha ayaa maalin bartamaha magaaladaasi lug ku marsiiyey xayawaanadaasi oo kumanaan gaaraya. ninkaasi oo watay koox caawinaysa ee bartamaha magaalada keenay ilaa 5,000 oo ka mid ah shimbirahaasi, taasoo la yaab ku noqotay dad badan. inta badan wadayaasha gaadiidka ayaa joojiyey baabuurtooda iyagoo daawasho u galay shimbiraha faraha badan ee ka gudbayay wadada. ninka iskale shimbirahaasi ayaa adeegsanayay xeelado la yaab leh iyadoo ay u muuqato inuu tababaro siiyey xayawaanadaasi u dhaqdo. waxa uuna sheegay inuu yaqaano qaab u kontaroolo xayawaanadiisa, inta badanna aysan jirin in ay ka lumaan shimbiraha u dhaqdo xilliyada uu galayo safarada. xayawaanka ayaxa. cudurka COVID-19 oo dhibaato u geystay dalal kasta oo ka tirsan caalamka ayaa waxa uu la degay dhaqaalaha dunida oo hoosdhac weyn laga dareemay. haddaba halista cudurkaas ayaa waxaa dalalka Bakistan iyo Hindiya ee dhaqaalada Aasiya waxaa ugu sii darsoomay khatar kale oo ah cayayaanka ayaxa. ayaxa ayaa waxa uu weerar xooggan ku qaaday beeraha labadaasi dal iyadoo dhaqaalahooda uu si weyn hoos ugu dhacay. bishii May ee sanadkan ayaa waxa ayaxa u baabi'iyey ilaa 60 degmo oo ka tirsan 4 gobol ee uu ka kooban yahay guud ahaan dalka Bakistan, gaar ahaan dalagyadii ku yaalay. dalagyada inta badan sida weyn u cunay ayaa waxa ka mid ah qasabka, suufka iyo khudaarta. dawladda ayaa waxay halgan u gashay sidii ay ku baabi'in lahayd cayayaankaasi oo keenay musiibo aad u xooggan iyadoo lagu buufiyey kiimikooyin kala duwan. waxaana cayayaankaasi ayaxa uu awood u leeyahay inuu safro masaafo dhan 300 oo kiiloomitir iyadoo la sheegay in uu ka gudbi karo badda cas una tallaabi karo dalal ka tirsan qaaradda Afrika. cayayaanka balanbaalista. xilliyada bilaha qaboobaha ayaa waxaa cayayaanka balanbaalista ay safaro dhaadheer ku tagaan dalal kala duwan oo ka tirsan caalamka sida shimbiraha oo kale. haddaba safarkii ugu dheeraa ayaa waxaa cayaanadaasi oo gaaraya 1 bilyan oo xabo ayaa waxay isaga kala gudbeen dalalka Mareykanka iyo Kanada ee waqooyiga Ameerika. masaafada ay isaga kala gudbeen cayaanadaasi balanbaalista ayaa lagu qiyaasay inuu dhan yahay ilaa 4,500 oo kiiloomitir. dad badan ayaa isweydiinaya qaabka cayaanadaasi ay u galeen safarkaasi cajiibka iyagoo aan ka lumin jihadii ay u socdeen. balse baaritaan la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in cayaanadaasi ay agaarka indhahooda ku leeyihiin aalad la mid ah jiheeyaha, taasoo u sahlaysa inay si caadi ah u tagaan halka uu bartilmaameedkoodu yahay. balanbaalis oo inta badan ee kasoo safarta dalka Canada ayaa waxaa marka ay soo gaaraan gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka waxa ay daboolaan 55,000 oo hektar oo dhir ah. xogaha laga helay safarada cayaanadaasi ayaa waxaa soo duubay robot u samaysan sida shimbirta oo lagu xiray kaamarado, taasoo la sheegay in la daba dhigay cayaanadaasi. waad ku mahadsantahay daawo.